بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله الصوماليين ميلة جوكتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يالو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن لله وفي انت باهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انت دمت الله ونحريستو والدينتين الله ونحريستان نغانا الله نوغدب نحريستو دالك دينتا دادك إيا دولد نمدبا إله سبحانه وتعالى هنوبت بادي مانتا وحكا لي صدح قضب كواد F-16 oo xamar dulhe haabaysa kalmadaan ka oranaya. qodobka labaad ninkii Epstein ahaa iyo Soomaaliya fadeexadaas maxaa ina ka khuseeyay iyadana kalmad baan ka oranayaa. qodobka saddexaad ugu dambeeya madasha qaranka shirkii fashilmay oo haddana dib loo iclaamiyay iyadana kalmad baan ka oranayaa. waxaan ka hormarayaa madasha qodobka koowaad xasan sheekh oo ku fashilmay kansalidii uu kansalay ama baajintii uu baajiyay shirkii kowda bisha dhici lahaa kadib markuu diiday ciidamadii ilaalada u ahaa madaxdii kasoo qaybgal lahay shirka ayaa dib haddana u iclaamiyey shirkii. xogahan helayo dowladaha dariska waxay sugayaan May 15, Kenya iyo Ethiopia waxay sugayaan May 15. waxaana loo sheegay xog ku helnay laba qodob inay sameeyeen maamul goboleedyada oo dhan inay xiriir la yeesheen isla markaasna ay rabaan inay toos ula xaajeystaan wixii ka dambeeya May 15. qodobka labaad inay rabaan Somaliland labaduba inay ku dhawaaqaan. saad ogtihiin imaaraadku labadaba maalgashi badan buu ku sameeyay, culays badan buuna ku hayay ilaa iyo hadda intii Israa'iil ay ku dhawaaqday inay iyaguna raacaan oo ku dhawaaqaan. waxay sugayaan May 15 iyo shirkaas wixii ka soo baxa. markaan eego marka Xasan sidii uu la dhaqmay ilaaladii iyo diyaaraduhu celiyay, markaan eego baarlamaanka fadeexadii iyo ceebtii ka dhacday waxaa ii muuqata inuu niyad xun yahay. qof niyad xumo shir ku galay iyo heshiisna waxba kama soo baxaan. waxaan aaminsanahay inuu khaafsan yahay uusan warka hayn dhibaatada dalka ku socota. xasanow haddii aa gaartid May 15 oo 3 bilood ka yar ay kuu hartay, haddaa gaartid May 15 waxaa tahay male dadkaa la siman tahay. waxaa kuu dheer haddaa isleedahay dowladii hore baad la midta waa laga xishoonaya sidii looga xishoonaya qoladii kaa horreysay. waxaa kama jiraan muqdisho dadka jooga 200,000 oo dhibaataysay baa jooga oo aan jaanis kula sugaya. waxaan ogahay hoos inaa uga dhacday Cali Gaaf inaa u urursatay waa ognahay. Eritrea iyo Uganda iyo Masar iyo hubkii laga keenay meel gaara dhigatay, laakiin arrintaa ku badbaadi mayso. rakaahu badan baa joogi waayay. waxaad noqon doontaa warlord ka mid ah warlorada, waxaadna noqon doontaa kan loogu necab yahay. heshiis siyaasadeed qaado intaan la gaarin May 15. haddaad diidid waxaad ku suntanaanaysaa legasigaaga ka mid ah. hadda legasigaaga waxaa raqorka kugu jira Israa'iil inay dalka kusoo duushay adoo jooga. waxaa ku raaci doonta dowladaha dariska oo raaca oo adiga kugu xumaynaya kadib markay arkaan inaynaan dal ahayn dadna ahayn. maalin walbana uu Donald Trump ku celcelinaya isagoo raba inuu kaga baxsado Epstein kaga baxsado inkastoo fadeexadii ku dhacday dadkiina dhibaateynay isaga iyo ninka la yiraahdo Elon Musk. labaduba aniga ma kuma jiro aniga been bay isla soo qalajiyeen iyagoo ay ka soo baxday magacyadoodii iyo inay Epstein ku xirnaayeen. waxay qarinayeen oo ay ku rafanayeen iyaga iyo Israa'iiliyiintuba ay inta ahayd. marka anyway Xasanow haddii aadan shirkaas go'aan ka soo saarin, haddii aadan doorashada dhexda dhigin, iska liqin waxa niyadaada ku jiro waxbaan boobayaa, fadeexad iyo mugdi baa taariikhdaada ku geli doonta, aadna ku suntanaan doontaa. dalkuna wuxuu geli doonaa burbur inta hadda ku dhacday ka sii badan. legasigaaguna noqonayaa taariikhdaada madow buu ku sii darmayaa oo tirada badan buu kuugu darmayaa. ku bishaarayso inaad foolxumo kala tegayso Soomaaliya. qodobka intaasan ka oranaya. qodobka labaad diyaaradii F-16 ayaa waxay dul haabaysay Muqdisho. kuwa meelaha la ordayay iyaan dhaweyda aan sheegay waa been. haddana waxay yiraahdeen been maaha, waa diyaaradii waa markay ogaadeen baashi soo wada baxday way joogaan laakiin malihin waxa iskale Turki baa leh waa been abuur. waa dhageysateen wasiirka gaashaandhigga oo leh diyaaradaha xooga dalka Soomaaliya loo keenay. aan idinku celiyo xogta iyo sirta iyo warka
qasab maaha inaad baraha bulshada ka qaadatid waa inaad layman leedahay ciddii ma garanaysaa aysan maxaa danoo iigu jira anigu inaan been sheego maxaa danoo iigu jira maxaa ka faa'iidaya diyaarada aan Soomaaliya lahayn haddaan dhaho Soomaaliya leh beri hadday la tagaan maxaan ku sheekaynayaa nin weyn baan ahay waa waxba marka diyaaradii waa kuwaas iyagoo xooga dalka uu leeyahay hawadeena saa u dul maraya runtii jiririca kugu jabaysa goorta aragtay diyaaradaas oo wiil Soomaaliyeed wado oo hawada Soomaaliya saa u dul maraysa F16 Soomaaliduna ay leedahay waxaad ogaanaysaa dalku inuu heli karo haddii isku duubni siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed lala yimaado dalku inuu heli karo ruqaansi uu ka ruqaansado meesha uu taagan yahay oo ah meesha ugu hooseysa adduunka oo uu ruqaansado meeshuu doono waxa maalgashi imaan karo mar haddii rule of law la helo ciyaaladan xunku argagixisada maalmaha lagu soo afjari karaa F16 taas intay ka shaqeysato iyo daroonada iyo helikobtarada jooga baa meel kasto ay degan yihiin la burburin karaa la baabi'in karaa ilaa ay ka wada qaxaan meel walba oo ay noqdaan duurjoogna xabad baa loo ugaarsanaya qaarna waa iyaga hawdka ku dhimanaya waxna waa soo qaxayaan oo isa soo dhiibayaan marka yacni ciidamada waxaan leeyahay niyadiina dhista dawlad cusub baa dhalanaysa insha Allah taala dawladda cusub baa la jaan qaadi doontaan haday niyadu idin ka xumaatay intii hore insha Allah taala inta dambe ayaa niyadu idin dhismi doontaa taliyaha cusub waxaan leeyahay hadalkan horay ku weeri wariyaan lagu adeegsan jaranjaraha noqon maalmaha hore hafadiixoobin oo ceeboobin gacantaada ha ku saxiixin wax aadan weliga mahadin adiga intaasan ku oranaya qodobka ugu dambeeya Epstein Soomaalida waxay jeceshahay fadeexad in la faafiyo waxay la ordayaan Epstein iyo Soomaali in la isku xiro haddana layna lahaa laba qodob layna ku caayay dad garbage ah oo corrupted oo tuuga inaan nahay hanoogu darinina garbage nima kale please fadlan isxakameeya so far inta ka soo baxday dawladda Mareykanka ee ku saabsan xogtii Epstein Soomaaliya qaybta kaga jirta inta badan waa warar iyo argagixiso iyo marmar ama xawilaad ama maalgashi kale sida oil iyo gas dhinaca Somaliland laba nin oo aad u fadeexaysan nin waa dhintay Allah u naxariisto waxa la yiraahdaa Shahar Abdul Haq wani Yaman iyo ganacsada weyn oo la yaqaan caana wani kaada wiilkiisa ka soo baxsaday Yurub oo loo haysta isagana gabar baa loo haysta dhimatay oo girlfriend iyo wuxuu ahay oo laga helay meel basement intuu leeyahay waa dilay buu baxsaday wadanka baxsaday oo Yaman u cararay ninkaasi 20 kiibo dhintay ninkaasi wuxuu ahaa nin aad saaxiib dhow ula ah ninka la yiraahdo Epstein wuxuu ahaa Mossad mashruuc ay leedahay mashruuc loogu talagalay dadka blackmail in lagu sameeyo waa meesha imaaraadku kala yimaadeen shidada waana idin sheegi doonaa connectionka ninkaas iyo inaga iyo Somaliland ninkaas Shahar wuxuu leeyahay saddex markaan akhriyo inta badan waa iska emailada isu dirdireen iyo isagoo booqanaya meesha la yiraahdo hadba ka soo wacaya Epstein waxaan joogaa islandkii baan joogaa iyo tii kalaan joogaa natan kalaan joogaa waa wax noocaas waa saqajaanimo islandka qofkii taga waa qof dhintay oo fadeexoobay oo aan sharaf lahayn maxaa yeelay gabdha qaaqaawan baa jooga 24 hours oo yar yara oo 13 jir ilaa 13 jir la sheegay lahubo iyo naaga waaweyn oo iyaguna sidoo kale lagu shaqaysto oo la isticmaalo trafficking ilmahaas intooda badan waxaa laga soo qabsadaa iskuulada iyo guryaha burburay oo baaba'ay ilmaha laga qaadanayo apprehensionka waxa la yiraahdo dawladdu ay qaadato oo la yiraahdo waxa la geenayaa foster care meelahaas ilmaha laga afduubtaa xaggaas la geystaa waa la tababartaa kadibna waxa laga dhigtaa dad lagu adeegto oo nimanka madaxda ah baa lagu blackmail gareeyaa ninkaas isaga ahi wuxuu kamid ahaa dadka halka tagi jiray wuxuu leeyahay 3 blog oo Somaliland ku yaala baan soo helay heshiiskooda aan soo saxiixay 50 milyan baan u baahanahay 50 milyan ma hayno wixii inta ka dambeeyay wax dhaqdhaqaaqa oo ninkaas leeyahay oo Soomaaliya ama Somaliland ka jira haba yaraatee isaga arintiisu marka halkaas ku gooday waxa ku xiga ninka labaad oo ah Sultan Ahmed bin Sulaym oo aninka DP World haysta ninkani waa disgustingly the friend very close friend of Epstein nin aad saaxiib la ah oo aad ugu dhow
oo wasakhnimada iyo ciyaar suuqnimada kala shaqaysan jiray ninkani waa ninka blackmailka ku haysta madaxda Soomaaliyeed in badan oo kamid ah inuu cira la fadhiyo waa fadeexad waxaan la yaabay qoladan Somaliland waa اعتراف بان raadinaynaa diba intay madax martay mararka qaarkood sidii caruurtiiba u dhaqmayaan kuwa waliba warbaahinta ku jira yaan dhaweyd waxay soo galiyeen wuxuu la kulmay hebel Trump ki yiri war lama kulmin anigu ninka photo op meeshan isku aragnay photo op wax la yiraahdaa jira hadaa meel isugu timaadaan dad tira badan oo kala ujeedo ah oo la wada casheeyo ama meel isugu yimaad xaflada qof walba ujeedo gaar u yimi laakiin xaflada kulmisay waa la salaami karaa sawirana waa la isla gali karaa and that's it hada Edward and Prince Edward and oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska ayaa sawir la isla galay qadadana ashana la wada fadhiyaa meel miisana la wada fadhiyaa that doesn't mean inay isagu wada hadleen ceeb weey bari hadii uu yiraahdo waxba nagama dhaxeeyaan soo fadeexoobi maysaan ceeb maaha sidii tii Trump oo kale hani dadka photo oo baa la yiraahdaa meesha la isku arkay laakiin yaa idin waday sultaan baa idin waday sultaan Cirow kadib markuu fadeexoobay oo ay soo baxday meeshaas ay soo baxday ceebtii Epstein inaa wali ag fadhido waxay ku tahay nasiib darro waxay ku tahay inaad waxba akhriyi karin between the lines inaad fahmi karin war dadka Ingiriiska nin baa kaga jiray ninkiina waa laga qaaday xilkii House of Lords buu ku jiray xilkii uu ka tanaasulay criminal probe baan lagu sameeyay hadda waa la baaraya dambi baa lagu furay cusub oo criminal in la baaro adduunka oo dhan qofkii wadankoodu kaga jiray qolo walba waa ka hadlaysaa dawladooda waxay leedahay waa baarayna maxaa ninka ku soo dhaweeyay marka maxaa wali ku ag fariisiyay ninkaanu isaga fara laga hayay isaguna ma faro idinka haya dhaqankan xaqaasa laga soo raray Israa'iili Mossad buu ahaa Epstein badan oo kalaana shaqeeya kaligiis ma ahayn rag badan baa shaqeeya sultaan maxaa kamid ah waxyaabihii uu ka shaqeyn jiray ka waday Somaliland laba qodob mid waa maalgashiga ama ha ahaato dekada ama ha ahaato oil midda labaadna waa siyaasad oo ah Somaliland in la yiraahdo hal laga gooyo Soomaaliya kala furfurka iyo kala gooynta ayaa la rabaa in ganacsi laga sameeyo haday isku taala Soomaaliya faa'iidada la heli karaa hadaad ajnabi tahay way yar tahay laakiin hadaa kala furfurtid qolo walba iyadoo desbareed meel cidla ka helaysaa markaas wax yar kaga dhamaysanaysaa wixii weynaayo aad heli lahayd wixii weynaayo iyagu qaadan lahayn baad adigu qaadanaysaa wax yar baad kaga dhamaysanaysaa maadaama ay desbareed yihiin goonigosadka ninka alifay oo waday oo waligiis Israa'iil kala shaqeeyay buu hataa ninka la yiraahdo bin Zayed isaga kaga sii dhuun daloola qadiyada Mossadka maadaama uu Epstein saaxiib la ahaa island kana uu hataa si joogta massage in loo naaga isaga masaajeeyay iyo kuwa u tababara kuwa isaga masaajeeyay oo qaaqa naagaha markay masaajeynayaan Epstein waa qaawan yihiin bale gabdha yar yarna way waa qaawan yihiin markay u masaajeynayaan saasoo kale inuu maaragtay gabdha loo tababaro noocaasa insaanka noocaasi inuu idin soo dhawaado ceeb weey waa wax laga faanay Cirow wax lagu faana maaha ina isla soo sawirto sultaan Ahmed bin Sulaym revelation kaas markuu soo baxay kadib fadeexad weey waxa ku soo haray iskuulka Abaarso waxaan arkayaa dhalinyaro aad u badan oo isku xiraya iskuulka iyo Epstein waa fadeexad iyo ceeb aan loo baahnayn in la soo waarido bigger picture ka fiiriya hataa hadaad Abaarso ka soo horjeedid inaad ilmahaas Soomaaliyeed ku magacawdid ama magacooda soo gelisay Epstein isfadeexad iyo ceeb wax jirana maaha hal mar buu soo galay magaciisu ninka la yiraahdo Epstein uu soo galay iskuulka Abaarso halka mar maxay ahayd iskuulkan waxa sameeyay nin dhalinyaro ah oo ka shaqeysan jiray mutualka iyo magaranaysa maxaan ku raahdaa businesska finance ka shaqeysan jiray ayaa wixiisii oo dhan intuu gatay halka aaday mashruucaas isaga maalgeliyay kadib wuxuu la soo xiriiray qolo la yiraahdo Kickstarter isku waa qolo middleman dhexe ama dilaal ah waxay ka dhex shaqeystaan dadka afkaarta la yimaada iyo dadka u maalgeliya bay ka dhex shaqeeyaan marka afkaar keensatid gadmaysa bay waxay kula raadinayaan cid ku maalgelisa ninkaas afkaartii uu keensaday bay u maalgelinayeen documentary bay sameeyeen documentary bay u direen ninka la yiraahdo Epstein
ابستين markii laga soo qaaday Soomaaliya waxa u soo baxday Soomaaliland waa Soomaaliya waxa u soo baxaysa markii ba argagixiso iyo balo inta badanna emailada Soomaaliya khuseeya waa argagixiso iyo news iyo UN iyo garanaysa wax ku saabsan way iyo NGO iyo mar buu leeyahay Gates ma jira project oo Gates ma jira Gates waa Gates Foundation hadda ka hor baan barnaamij ka sameeyay ujeedadoodu ay tahay food security-ga UN ta kaga dhex jira oo ujeedadoodu tahay beeraha laba arrimoodba in lagu sameeyo marka koowaad GMO in laga dhigo genetically modified mira ah la geliyo oo cuntadii hal mar markay soo baxdo inaysan mar labaad soo bixi karin marka labaadna ilaa markaad seedka noocaas beerto ilaa inaad daawooyin iyo ku wado oo saas ku wado maayo waa wax la DNA-deedii lagu ciyaaray wax caafimaad laga helayana ma cudurrana waa laga qaadaa markay dadku marka ay maalgashan waayaan oo beeralayda in dhulkii laga qaato America dhul aad u weyn buu ka qaatay oo ka iibsaday dadkii buu magaranaysaa si tartiib uga xoogaya dhulkoodii barnaamijkaas marka Gates Foundation ay wado buu yiri Gates projects ma ku jiraan mawjada laakiin Soomaaliya si kale uu ku maalgasho xawlaadana uu wadwaday abaar buu wadwaday waana hadalka hadda ninka la yiraahdo Trump wadada uu raacayo wadadii Israa'iil ay wadatay Greenland maxaan ku iraahdaa Venezuela Soomaaliya marka la caayo Somaliland waxa soo dhan waa step by step arrimaha isdaba socda Soomaalida marka la caayo hadda wuxuu ku daray xawlaadaha uu ku daray Donald Trump oo waa dhaweyd u weeraray waa kii sharci ka soo saaray bishii hore koodeedii December koodeedii ka soo saaray sharci shida ah oo dadku aysan lacag diri karin oo dhibaateynayo ujeedada dhan oo la lahaa waxay xawlaadaha in la bedelo oo Soomaalida inta laga saaro iyagu ay maal gashadaan hadallada uu in badan ka hadlay bay kamid tahay oo emailadiisa ku jira laakiin laba waxyaabood way may oga marka koowaad rule of law adag oo looyaro iyo sharci iyo maxkamad iyo ma jiro Soomaaliya kama jiro marka labaad xawlaad waxay ku dhisayeen trust ileen bangi ma jiro Soomaaliya ay leedahay oo caalamka ku xiran oo numberkii Swift code leh kan Soomaaliya hadda Muqdisho ayaa Swift code helay isaga wali laakiin ma aha mid u furan public hadda wuxuu furan dawladdu u furan yahay laakiin dadka shacabka uma furna inta la gaarayo marka maxay ku dhisan yihiin xawlaaduhu billions of dollars ku maamulaan trust aaminaad iyo diin iyo islaamnimo taasna haddaysan haysan iyagu ma aamini karaan therefore ujeedadoodu intaas ahayd waxa intaa ka badan oo Somaliland ku taxalluqa oo Epstein la xiriira ma jiraan dadkan in la fadeexeeyo ceeb weeye fadeexada in ka fogeey inagoo dhan Soomaaliya caruurtaas oo caruurteeni laakiin waalidka iyo dawladda waxaan leeyahay iskuulada ajaanibtu ay ku lug leeyihiin oo abaarsa ka mid yahay waalidkow isha ku haya ilmaha inuu wax barto waa fiican tahay laakiin in laga hadlayo waa khatar halkaan oo aan la joogno oo dadku ay sharcina jiro dadkuna xuquuq leeyihiin la ilaaliyo ba iskuuladii public ay la joogi laayeen dadku ama private school bay aadaan oo ay isha ku hayaan oo ay ka war hayaan oo ay og yihiin sida Islamic schoolka ama guryahayba caruurtii hadda fadhiyaan oo ay wax ku bartaan home schooling waa very popular hadda aad u caan u yahay oo u soo faafaya waaba la taagan banaanada la taagan gaalada waxay home school caruurtaada ka saar schoolka hayelay idea iyo afkaar Israa'iil ay leedahay ba ka socda North America iyo Europe oo dadka xataa brainwash lagu sameeyaa oo laga dhaqaa xataa taariikhiga la bedelayaa caalamka ka jiray oo waxa loo qaabeynaya in iyagu leeyihiin taariikhda adduunka oo dhan wax taariikh ay leeyihiin lama arko waa kulli waxay boobeen noojeeda marka iska ilaaliya waxbarashadiina haydin aadin ilmuhu laakiin iska ilaaliya especially ilmaha boardingka ku jira oo gaalo ay u dhowdahay marka laakiin inta wax dhaafsiisan ma jiraan caruur Soomaaliyeed inta la kaxeeyay Epstein loo geeyay ma jirto maxaa marka noogu soo xoqoqaysaan awal ba garbage iyo waa tugana la lahaay ma waxa noogu daraysaan haddana Epstein bay ku jiraan kuma jirno Somaliland shughul kuma laha Epstein waa ka madax banaan yihiin aan ahayn DP World waa dawladdu hays ilaaliso iskuuladaasna dadka waaridka iyo qaybta waxbarashadu isha ku hayeen oo ha ogaadeen oo ha kormeereen oo isha ilha kula haadeen gudaheeda oo ha ka war hayeen oo mashaariicdooda lugta kula jireen oo macallimiinta qaar la shaqeeya laga dhigo dad u soo sheega dawladda ama xogta soo gudbiya oo dawladda u warama ma ujeeda
ولا كلا شقيسانية waxbarashadana waa rabnaa waana iska ka ilaalinaynaa dhaqankayaga iyo diinteeda ka ilaashanayna intaasaan oran lahaa billahi tawfiiq salaam